Solo saaxiibayaal muuqaalkii maanta wuxuu ku saabsan yahay safarkaygii from London to Liverpool wuxuu ii ahaa safarkii ugu horreeyay UK dhexdeeda aan ku safro. Runtii wuxuu ii ahaa waayo aragnimo iyo wax kororsi. Idinkana waxaan idila wadaagayaa dhammaan macluumaadkii ku saabsanaa safarkaas. Haddii aad tahay qof UK jooga ama qaaradda Yurub ku nool oo laga yaabo UK inuu socdaal ku tago, waxaan aaminsanahay muuqaalkan wax badan inuu kaa tiri karo. haddii aad tahay qof meel kale joogana wuxuu kor u qaadayaa ogaalkaaga. haddii aan ku soo laabto muuqaalka UK dhexdeeda markaad joogtid, haddii aad rabtid inaad safartid waxaad isticmaali kartaa habab kala gedisan sida inaad ku safartid tareen ama diyaarad ama bas nooca loo yaqaano coachska. annaga safarkeena maanta waxaan naga caawinaya oo aan isticmaalaynaa bas ama coaches. London markii la joogo basaskan ama coachska loo yaqaano waxay ka baxaan meelo kala gedisan, laakiin waxa ugu caansan xarun la yiraahdo Victoria Coach Station. oo meeshaas muuqaalka aad ka arkaysaan waa hool weyn, wuxuu leeyahay gates laga baxo oo basaska laga raaco. sida arki kartaan gate kasta wuxuu leeyahay shaashad iyo number ku dul yaala kuwaasoo ku hagaya oo mar walba kuu sheegaya baskaaga goortu baxayo iyo meesha uu socdo intaba. dhanka basaska haddii aan fiirno, basaska laftigooda waxaa kala leh kambaniyaal kala gedisan, waxayna kala sitaan magacyo kala duwan, waxaana ka mid ah Megabus, National Express iyo kuwa kale. tigidhadooda waxaa ka heli kartaa online-ka, qiimahaana wuxuu dhexeeyaa 20 ilaa 30 inay ka yaraadaan oo suurtagal inay ka bataan oo suurtagal. baska markii lasoo raaco saaxiibayaal gudihiisa waa sida tan. service ahaan waxaad ka dhexelaysaa chargerkaaga, sidoo kale wuxuu leeyahay suuligii. marka aad London ka baxdid oo Liverpool u socotid waxaa maraysaa magaalooyin kala gedisan. magaaladaas waxaa ka mid ah Birmingham oo ah runtii magaalo aad iyo aad u weyn. markii la sii mariyana waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu hakanayo ama in xoogaa muddo doora la joogayo. hadda muuqaalkan arkaysaan waa Birmingham, inta aan la gaarin baan ka duubay. ugu dambeyn Birmingham waa nimid in yaro cabaara la joogayaa, waa lagu qadeynayaa, waa lagu nasanayaa. markaa kadib anigu waxaan ka mid noqday dadkii degtay, cabaar baan joogay, muuqaalkan aan ka duubay. ugu dambeyntii waa iskaga tagnay Birmingham. Liverpool baan ku jahaysanay, wadada intaan sii haynay waxaan la sii kulanay xoogaa rooba. waxaan soo soconaba waxaan soo gaarnay Liverpool. halkan waa afaafka Liverpool laga soo galo, kadibna waxaan nimid meeshii ugu dambeysay oo aan baska kaga degaynay. markaa kadib waxaan fiirshay, aan Google ka baaray hoteelka intuu ii jiro. runtii aad iyo aad baan u nasiib badnaa, wuxuu ii jiray 10 daqiiqo oo luga. waa soo lugayay, kadibna intaan hoteelka gaarin ba waxaan soo maray meeshan santarka ah, muuqaalka yarka baan ka qabtay. ugu dambeyn waxaan soo gaaray hoteelkii. magaciisa waxaa la yiraahdaa Travelodge. qiimahaana wuxuu ka mid yahay hoteelada aad iyo aadka u jaban. intaa kadib maadaama xilli habeenimo ahayd, waqti cashana kusoo beegantay, waxaan isku dayay inaan cashar raadsado. waxaana baaray maqaayad xalaala, waxaana helay maqaayadan. ugu dambeyn muuqaalka intaas ku ogyahay. haddii mar halkaan soo gaadhay waxaan kaa rajeynaa inaad like iyo subscribe aadna siisid.